waxaan rabaa maanta inaan idin la wadaago qisadii anigii qamar wuxuu ahaa qofka dal dheer oo loo socanayo masaafo dhan 400 kilomitir iga soo safray habeen oo dhan aan saxan qamar markaan xasuusto sheekadiisa waxaan u dareemaa sida oxygen-kii oo kale wuxuu yahay qayb iga mid ah wax allaale waxaan niyeysto haddaan shaax niyeysto waxaan keeli jiray horay laakiin anigana gob ayaan ahay kamaan dhamaysan jiray hal mar baan intaan ka badan siin jiray qamar ma ilaawo mar alaala markaan xasuusto waan iska qoslaa markaasaan isdhaayaa kaa qosliyay qamar wuxuu ahaa qof naxariis badan ee inta nool ee bila aadana ka naxariis badan qamar markaan banaanka aadayo isleeyahay soo adeeg waa qofka kaliya iraaca qamar ima ogolaado inaan kaliya banaan aado qamar mar walba gaariga kaxeynay wuxuu dhahaa mar walba xiro suunka inta wuxuu ka taxadiray aniga nolosheeda maanan arag qof saas u fiican waligii intaan noolaa qamar wuxuu ahaa qayb iga mid ah dii maanta wadnahayga la jaro waxa laga helayaa magaciisa runaantii bilaadanku ma wada sinna anuu niyo jabsan farxad haysan waa qofka farxadda siiyey qamar waxaan ilaahay ka baryayaa inuu qabriga kuu nuuriyo ilaahay waxaan ka baryayaa laakiin waa nool ilaahay cimri dheer iyo caafimaad nahay siiyo ku darsan xageed ka soo tagataa qabrigana ilaahay hay noo nuuro ifkana ilaahay hay noo nuuro halkana taagnaa ku maqlay kowde if iyo aakhiraba ilaahay hay noo nuuro labadaba waa u baahanay ilaahay ku salaam ya habibi macaan ilaahay ku naxariisto ilaahay noo wada naxariisto ilaahay hawdu wada naxariisto dad badan baa Ramadan Kareem baan dadka leenahay Ramadan mubaarak ya ay kaawi bye bye